السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ووالاشين مريم كسو dhawaada xalka nolosha. Maanta waxaan doonaa wax yar in la sheergareeyo ku saabsan exercise-ka iyo diet-ka. Marka waxaan doonayaa inaan yareys duubo oo 3 kiilo igu dheeraad noqday. Marka ana baruurta waan necabahay. Marka waxaan doonayaa in iska rido. Waxaan doonayaa in la sheergareeyo. Marka 7 cishan doonayaa in diet galo, exercise-na sameeyo. marka waxaan la qaybsanayaa cuntada aan cunayo iyo exercise-ka sameeyo subax kasta waxaan doonayaa inaan 15 minutes soo lugeeyo. marka iminka waa 7 barkeedii waa yara eeli la soo dhawaada insha Allah. haddaan doonaysan in la gashaan diet-ka insha Allah ku soo dhawaada. welcome insha Allah. daawasho wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada waa kan oo lugeynaya ma aragtaan. subaxii maalinta subaxii waa aroortii way fiican tahay because meel kasta waa iska quiet, streetku iska maran yahay, qofka doonaya ka faa'iidaysto. inta carruurtu kacayaan hurdaan soo lugay insha Allah. aad bay qurux badan tahay subaxii. dhulku u qurux badan yahay wuuna maran yahay marka ka faa'iidaysto. exercise-ka subaxii waxa laga yahaa way fiican tahay lugta subaxii. marka waan lugeynaya anigu exercise kalena ma sameynaya. dadka lacagta gym-ka waxa ku bixiya mihi marka waa iska lugeeyaa. qofka hadduu aad u tallaabsado oo aad u lugeeyo baruurta way ka dhacdaa baa la yidhi. maskaxdana way u fiican tahay lugtu. marka insha Allah ka faa'iidaysta subaxa hore soo lugeeya, baruurta iska soo rida. baruurta badan ma fiicna baa la yidhi. waxay dadka xanuuno badan baa laga qaadaa sida wadne istaaga, heart attack-ga, dhiigkarka, macaanka. dadka qaar way ilaa kansarada qaar ka mid ah ayaa laga qaadaa. marka ka faa'iidaysto subaxa hore soo lugeeya inta carruurta hurdaan. marka fajirka tukataan dub ha u seexanine intaa baxdaan haddaan idin meeshu safe tahay oo meesha degantii aan idin baqayn iska soo lugeeya subaxa hore insha Allah. insha Allah hadhow waan isku soo noqonaynaa markaan exercise-kayga soo dhammaysto. إن شاء الله اسك قراعة هذا الصبح ونكسن. السلام عليكم. واتا قراعة ذي نلقى في سنة يا قراعة في عمل صوص مستوي بيت iyo qudrad isku jiraan soo sameeyay. waa aragtaan waxa ku jira barbar, waxa ku jira dabacase iyo koshay kana la yiraahdo halkan. kana koshay la yiraahdo iyo canab baan isku cunayaa. basal iyo tawaanna way ku jiraan. waa cunto fiican aan isku soo sameeyay. marka hadda doonaysan diet-ka ila gashaan soo samaysta. koobka shaahana waan cabayaa. koobka shaaha iskama deena waan iska yareynayaa laakiin shaahiga iska cabayaa. waxaan ku daray xabad sonkora iyo magaca sonkora iyo in yar baan ku daray. intaasaan cabayaa insha Allah. hadhow insha Allah dina qaybsanaya cashadayda. marka waxaan idin rajeynayaa khayr iyo nabad. maca salaama. qadadii baa la gaadhay. waata qadadaydi ma aragtaan. qadadaydi waxay ka kooban tahay salad, tamaandho iyo saadin. saadinku waxa weeye fishka yaryar waa noocan sidan u eg. saadin baa la yidhaahdaa waa kalluunka yaryar ee googo-an marka ku jira daasada ku jira weeye. marka qadadeedi waa taa intaasaan cunayaa. sinjibiil shaahaygana waa kan waxa weeye ginger tea ama shaah ka samaysan sinjibiil. biyo iyo sinjibiil la isku karkariyay weeye. very nice. waxa la sinjibiishu waa lagu dhuubtaa. marka weekend waan isduubayaa. kusoo dhawaada videoga isduubida. haddaad doonaysaan insha Allah idina igu soo biira oo ila sameeya insha Allah diet-ka insha Allah. insha Allah wayno cashadana insha Allah idin qaybsanaya. marka waxaan ku jiraa diet week-ga 7 cisho diet ku jiraa insha Allah. challenge weeye diet challenge. marka insha Allah hadhow wayno cashada insha Allah. bye. asxaabta waxaan la sheer qaybsanayaa cashadaydii. waata cashadaydii waxay ka kooban tahay digaag, xabad digaaga
baradhadii macaaneyd oo taasa iyo carrot xabad yaro baradho ah iyo bariiska buniga ahaa ama brown rice ama bariiskii buniga ahaa waxaan kaloo cunayaa xabad muuse maaragtaan xabada muuse iyo tufaaxaas marka maanta challenge-kii uu dhamaaday kana ugu dambeeya hadhow laga yaabo koob shaaha inaan cabo sonkortu ka yar tahay marka maanta halkaas challenge-kii noogu dhamaaday insha Allah waa inoo next video-ga insha Allah khayr baan rajaynaa. Assalaamu calaykum.